Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiin ma meel walba joogtaan iyo xaalad walba aad ku sugantiin. Waxaad ku soo dhawaataa muuqaal cusub waxaana kaga hadli doonaa wararka ugu waaweyn ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda dalkeena. Haddaba haddii aad channelkan ku cusub tahay subscribe inoo saar, like iyo share hanaga ilaawin. Mar walba halkan waxaad ka heli doontaa adeegyada ciyaaraha dalkeena haddii ku saabsanaan lahayd ciyaartoyda, kooxaha iyo shakhsiyaadka caankaba. maanta waxaan ka hadli doonaa kooxda kubadda cagta Hegan ama kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed Hegan ayaa iska fasaxday ciyaaryahan Jibriil Xasan Friid. Jibriil Xasan Friid wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda weerarka ugu ciyaara kooxda Hegan, wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoyda ugu halista badan xulka qaranka ee dalkeena Soomaaliya, isagoo lagu xasuusto inuu ku guuleystay jaa-isada Man of the Match lana guddoonsiiyay DStv. ciyaaryahan Jibriil Xasan Friid ayaana si rasmi ah u shaaciyay inuu iskaga hayaamay kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed Hegan FC isagoo muddo dheer ku sugnaa kooxdaasi. Jibriil Xasan Friid wuxuu la soo qaatay waayo fiican isagoo kula soo guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League oo xilligaas la oran jiray horyaalka Soomaaliya oo qura sanadii 2014 ayuu kula soo guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League, laakiin wuxuu si rasmi ah u shaaciyay oo inoo xaqiijiyay inuu iskaga hayaamay kooxda Salimadna oo soo qaatay warqadiisa fasaxa oo kooxda Hegan. xidigan ayaa waxaa aad u baadigooya kooxo badan inkastoo hadda aad loola xiriirinayo kooxda Radsan FC taas oo sanadkan u soo baxday wareegga xiga ee tartanka xiisaha badan ee koobka Jarnaal Daawud. Jibriil Xasan Friid wuxuu kooxda Hegan waqti badan la soo qaatay isagoo koob kala duwan kula soo guuleystay, waxaana ugu weynaaba koobka horyaalka Soomaaliya Premier League. Salimida koob kale ayuu la soo qaaday oo munaasabado iyo koob kale. wuxuu sidoo kale xidigan soo matala xulka qaranka Soomaaliya muddo dheer isagoona gool qurux badan u soo dhaliyay xulka, inkastoo muddooyinka ugu dambeeyay uusan xulka ka mid noqon ciyaaryahan Jibriil Xasan Friid. Jibriil Xasan Friid kadib bixitaankiisa wuxuu ka hadlay dareenkiisa ku aadan inuu ka tago kooxda muddada dheer uu ku sugnaa ee Hegan, wuxuuna yiri: waxaan maanta shaacinayaa inaan iskaga hayaamo kooxda Hegan FC oo muddo dheer aan ku sugnaa. waxaan aad u macsalaameynaya dhammaan taageerayaasha sharafta badan ee Hegan, Salimida maamulka kooxda Hegan, ciyaartoyda kooxda Hegan ku sugan. waxaan aad uga xumahay inaan ka tago kooxda Hegan oo muddo aan ku sugnaa, laakiinse wax walba oo bilow ah waxay leeyihiin dhammaad. Hegan waxay ii ahayd gurigeyga oo kale, laakiinse maanta waxay ii noqotay inaan gurigeyga ka tago meel kana aan ku biiro. taasina waa kubadda cagta, way ka dhacdaa. sidoo kale wuxuu sii raaciyay in uu taageerayaasha Hegan ugu mahadcelinayo siday u garab taagnaayeen. waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha kooxda Hegan sidee ay ii garab taagnaayeen marka aan garoonka ku jiro, siday igu sacabtumayeen, siday ii dhiirgelinayeen. waad mahadsantihiin, weli baaqi waxaa ku tihiin qalbigeyga, ayuu sii raaciyay ciyaaryahan Jibriil Xasan Friid. kabtanka hore kooxda Hegan ayaana iminka si rasmi ah iskaga hayaamay kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed Hegan. haddaba daawade haddii aad muuqaalkani daawanayso subscribe inoo saar, like iyo share hanaga ilaawin. Salimida aragtidaada ka dhiibo Jibriil Xasan Friid oo ka hayaamay kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed.